barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer sidoo kale tan xubin ka mid ah guddiga qandaraasyada qaranka Soomaaliland mudane Maxamed Diriye Xaydal Jir ayaa waxa uu si rasmi ah xariga uga jaray xarun caafimaad oo loogu talagalay daryeelka iyo sidoo kale daaweynta ilkaha oo lagu magacaabo Burco Dental Clinic. Cisbitaalkan ilkaha ayaa waxa uu ka shaqeyn doonaa dhammaan adeegyada ilkaha haday tahay buuxinta, saarista, xidhista iyo sidoo kale safaynta iyo dhammaan adeegyada kala duwan ilkaha. Xaruntan caafimaad ee Burco Dental Clinic ayaa sidoo kale waxay leedahay farmasi ay ku dhameystiran yihiin daawooyin tayo leh. Dr. Axmed Xasan waa dhakhtarka iridaha u furay xaruntan caafimaad ee ilkaha waxaana faahfaahin ka bixinaya adeegyada xaruntani Burco Dental Clinic. dhakhtarka waqti badan baan ugu soo qaadanay inaan u qabno horta faa'iidada weyn ee dhakhtarka uu abuuray waxa weeye bulshada gobolka Togdheer iyo gaar ahaan Soomaaliland inuu wax badan qabto waayo bulshadeenu gobolkeenu aad buu waxa uga hooseeya qaybta ilka aad buu uga hooseeya taas weeye waxaan u qabuuray inaan sameeyo dhakhtar qofkii garanaya af Soomaaliga uu ku si fiican u fahmayo beeshankii oo dhan uu qabanayo qofkana si fiican u fahmayo waxyaabo uu qabanayo waxa weeye adeeg kasta oo lagu baahan yahay uu qabanayo ha ahaato ilig saaris gelin wax kasta uu qabanaya oo ilkii uga baahnaa ilka gelin ilka xidhisti quruxda badnayd waxa soo dhan uu qabanaya waxa kale oo bishaaraan u sameeynaya gobolka bisha Ramadaan barakeysan in discount ilaa 40% aanu sameeyay xitaa kaararkan free ka dhiga intaas oo dhan muhiimadu waxa weeye bulshadu inay noqoto dhakhtar ay ku faa'iido. barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Diriye Xaydal Jir ayaa waxa uu tilmaamay muhiimadda ay leedahay xaruntan caafimaad ee Burco Dental Clinic isagoo sidoo kale shacabka kala duwan ee gobolka Togdheer ugu baaqay inay ka faa'iideystaan xaruntani oo furay dhakhtar reer Togdheer ahi. waxa sharaf inoo ah inuu ka daafuray xaruntan ilkaha ee Burco Dental Clinic uu inoo furay dhakhtarka cusub ee reer Burco Sharmaarka Xasan Macallin oo nin reer Burco waxa qiimo weyn horta marka hore inoo ah in inamadii wax ku soo bartay maanta ay inooga shaqeynayaan isbitaalladeena nooc kastay tahayba qayb kastay tahayba waa qiimo weyn oo u soo kordhay waxa weeyaan dhakhtarku waa dhakhtarkii u horeeyay reer Burco ee ilkaha ku soo takhasusay ee inooga furay halkan aad iyo aad baan gobolka ku soo dhaweynaa dadka reer Burcana waxaan leenahay nin baa wuxuu yiri intaad xay tahay xanaanada ilkaha iyo xaragaha deyn ilkaha badan qaadku inaga dilay ee gabaygu inaga dilay ee mataqaana foodku inaga dilay xaruntii aynu isugu imanaynay ee aynu ka daweynay halkan waxa weeye inaad timaadaan oo idinka la idin furay waana ka 40% ka imka bisha Ramadaan awgeed discount inoo sameeyay af Soomaaliga buu garanayaa idinkaaga turjumay mayso waa nin reer Burco waa nin saqda dhaxaabeenkii gurigiisa laga soo kicinayo markaas markuu inta koobsaday inuu inanada martaqaana gacan ku siinayo loo baahayay ilkaha daatayna aynu la nimaadno meesha aad iyo aad waxaan ugu ducaynaa goobtan ilaahay inuu tii barkay Allah ka dhigo sheekh reer Burcana waxaan leenahay doctoradii qarankeena doctorada dalka ayaa insha Allah gobolka yimi gobolkoodii yimaadeen waxaan leenahay dadkeena cabsan dadka qurba joogta dadka meelaha ka yimaadeen aanba ajnabiga runtii waxa leenahay ka horeysay nimanka dhaladka ee reer Soomaaliland marka doctor Axmed Xasan Macallin insha Allah waxaan ku soo dhaw gobolkaaga xaruntan caafimaad ee daryeelka iyo sidoo kale daaweynta ilkaha ee Burco Dental Clinic ayaa waxay shacabka kala duwan ee gobolka Togdheer gaar ahaan degmada Burco ay ugu bishaaraynaysaa inay u sameysay qiimo dhimis 40% taas oo lagaga faa'iideysan doono adeegyada ilkaha. waa Khalid Bakeele fogaan araga xorta ee Star TV Burco.